فيروسك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد السلام، أنا ورقة رئيس محمد عيموي كان مدة maamul kasar istaalka caalami waxaan rabaa maanta inaan kala qayb qaadano bulshada Soomaaliyeed wacyigelintaas ku saabsan qaabkii looga hortagi lahaa cudurka loo yaqaan coronavirus 2019 ama COVID-19. Sida ogtihiin cudurkan waa cudur fara badan ku haya caalamka oo dhan, laga maarmaan ay tahay inaan ka wada shaqeyno qaabkii loo xakameyn lahaa ama loo yareyn lahaa. waxyaalaha ugu muhiimsan ama talooyinka ay soo jeedinayaan waxa weeye fadlan gacmahaada dhaq ku dhaq biyo soconaya iyo saabuun muddo 40 second ah. fadlan gurigaaga joog haddaysan jirin arrin muhiim ah oo aad u soo baxdid. fadlan ka fogaa qof waliba wax ka badan 1 mitir. fadlan ka fogaa qof walba ugu yaraan 1 mitir. haddii aad isku aragtid calaamadaha soo socdo, fadlan si dhaqso ah ula xiriir lambarka gaaban 449 ee ay sameysay wasaaradda caafimaadka ama xarunta caafimaadka oo kugu dhow si ay kugu caawiso. calaamadahaas waxaa ka mid ah 1 haddii aad isku aragtid wax loo yaqaan qufac, 2 qandho, 3 naqaska qofka oo ku xirmaayo. fadlan haddii aad isku aragtid calaamadahan hore oo soo sheegnay, waxaa laga maarmaan ah inaad si dhaqso ah ula soo xiriirto waaye isbitaalka ama xarunta caafimaad oo kugu dhow ama wac 449. fariintan caafimaad waxaa idiin soo gudbiyey isbitaalka caalami Specialist Hospital.